gabar mucjiso ah ayaa ku dhalatay magaalada Garissa. Gabadhan ayaa waxay jirtaa 27 maalmood iyadoo waqtigii ay dhalanaysay lagu qalay hooyadeed. Hooyadeed ayaa u geeriyootay qaliinkii lagu sameeyay kadib 9 maalmood. Gabadha ayaa waxay tahay mid oonaysa waqti kasta, habeen iyo maalinba. Madaxeeduna uu aad u weyn yahay. Waxa ayna ka daloosha dhabarka dambe iyadoo saliingo lagu siiyo caanaha. Waxaan la kulmay aabaheed oo lagu magacaabo Abuukar Aadan oo iga warbixiyay arintaasi. marka gabadha waxay noosha adigu 27 bir meelahaas hooyadeedna operation ay ku dhimatay marka xanuunkaas ay ku dhalatay Nairobi aan u qaaday waxaan geeyay Kijape marka madaxii bay biyaha way wax ka bixiyeen wax kale waxba kama qaban karno iska noqo ay dheheen iska soo celiye marka anigana hadeenin waxa ahay oo ma aragtaa xaruur u joogaan oo xaasil oo ilaahay ma iska kibarwaale wixina tabarna ma hay marka iga waxaan rabaa hadii umada ay maqleyso oo ma aragta oo Soomaaliyeed meel ay joogaanba ki saacideeyni karo inuu ugu saacideeyo ayaan jecelahay. Gabadhan yar oo ay ku dhibaatoonayaan waalidkeeda ayaa daaweyn lagala qoostay dalkani Kenya dibadaha mooyaane. Maxamed Ciise, Cable TV, Garissa.